السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعن داود ديال كسو دوادا مركله إيا برنامجكي فرقينتا عيارها سوبر ساترداي waxaynu eegi doonaa oo toos idinla socodsiin doonaa ciyaarta iminka garoonka GT Community Stadium ee galbeedka magaalada London ku dhex maraysa kooxda Brentford oo martigelinaysa kooxda Liverpool. Liverpoolna gool baa lagu hogaaminaya ciyaartuna meel adag ayay maraysaa waxaana moodaa in homework loo diray ama shaqo guri loo diray kooxda Liverpool. Waxaan kaloo ka hadli doonaa Man United oo xaalkeeda uu ku soo laabanaya Man United la yaqiinay caawa 4 gool bay dhalisay goorma ugu dambeysay ma xusuusataa gool ay dhaliso kooxda Brighton oo muddooyinkii ugu dambeeyay kooxdan iska haysatay tumana jirtay ayay caawa intay geysatay Old Trafford feeraha oo laga soo tumay kooxdii oo gees u socota ayaa ka soo baxaysa garoonkaasi waxaan kaloo ka hadli doonaa ciyaaraha bari dhici doona kulamada xiisaha leh Chelsea oo xaalkeeda uu marayo meel adag kadib markii kooxda horyaalka ku cusub ee Sunderland gurigeeda tay galabta tagtay marqida la soo cabay Chelsea waa la soo fiiqay si kale kuma garanaysid maxaa qaldamay kooxdii wacdaraha dhigaysay ee Liverpool xitaa ka badisay maxaa ku dhacay waan ka hadli doonaa arrintaasi adinkuna qayb baad ka tihiin daawadayaal barnaamijka horyaalada kale ee Yurubna waynu eegi doonaa Cabdi Fataax barnaamijka la daadihinaya aan soo dhaweeyay Cabdi Fataax bal horta ciyaarta socota hadda inooga waran Liverpool iyo Brentford fiidnimo wanaagsan daawadayaal ciyaaran caadi ah ay ka socoto garoonka GTEC Stadium Liverpool iyo Brentford ayaa hadeertaan ciyaartu socotaa waana wixii laga filinaya Liverpool Arne Slot hore u sii sheegay wuxuu yiri anaga waxa nafta noo keenin oo dhibaatada ugu weyn uga waxa waaye kubadaha dhaadheer Brentfordna waa kooxda ugu badan marka laga hadlayo kubadaha long ballska goolkan wuxuu ka yimaaday tuuriyo gacanta oo dheer waa kooxda ugu goolasha badan sanadkan marka laga hadlayo long throw inka waxay dhaliyeen 8 gool ay ka dhaliyeen throw inka dheer oo gacanta lagu soo tuurayo marka Brentford sidan waa laga filinayay Arne Slot wuxuu ku fashilmay in ciyaaryahanadiisu u diyaariyo ciyaartana hadii hal ever maraysa 26 daqiiqo ayaa la ciyaaray hadii ay sidan ku sii socoto Arne Slot uusan ciyaartan wuxuu iska bedelin waxaan dhihi lahaa saddexdan dhibcood waxay u socotaa Brentford Arne Slot wuxuu ku bilaabay ciyaartan Mohamed Salah oo ciyaartii Champions League waa aragnay in Liverpool 5-1 ay uga badiyeen kooxda Frankfurt laakiin maanta uu ku bilaabay Mohamed Salah marka waxay ahayd inuu sidoo hore ku sii socdo ciyaartii ay ku badinayeen goolasha badan loogu dhalinayay waan u jeednaa hadirtaan fursado fiican oo isku cunaya Salah sidoo hore ma aha wax kasta iska dhici karo qaybta labaad ciyaarta waxa laga yaabaa ninkan Salah la yiraahdaa inuu 2 gool 3 u dhaliyo way dhici kartaa laakiin hadda sida xaaladdu u muuqato way ku adag tahay ninkan dhinaca difaaca bidixdana wax badan aan meesha ka sheegnay ciyaartii Manchester United ka hadalnay ciyaartii Chelsea u baxayeen ciyaartii Crystal Palace u baxayeen Galatasaray dhinaca bidixda laga soo weeraray Liverpool waa Kerkez iyo Van Dijk meesha isla joogaan marka Kerkez wuxuu ugu sii bilaabaya qalad Andy Robertson miyaa ahayd inuu ku soo celiyo dad badan ayaa arinta soo jeediyeen laakiin Arne Slot wuxuu ku adkeysanaya inuu ku bilaabo difaacan Hungarianka oo Bournemouth ku soo iibsaday asagana waxa moodaa in kalsoonidiisa hoos u dhacday si weyn marka Slot waxa moodaa wali inuusan ka baran khaladaadkii hore waa gartay caawa si gaar ah waxa isha loogu hayaa Salah oo de gool aan dhalin marka ma la oran karaa haddii gool aan ay dhacdo inkastoo ciyaarta ay socoto Liverpool waa loo yaabaa markaasi hadeertan tuuriyo gacanta kale dheer long throw in ay hadda loo ay haystaan Brentford waa sidii Arsenal oo koorna heshay ama kooxo kale markay heraan rigooro ama waa koox halis weyn iska leh marka hadda soo qaadayaan aan aragno hadii ay dhalinayaan waa arin yaab leh waa kooxda ugu goolasha badan long throw inka marka Arne Slot wuxuu baahay khaladaadkan inuu ka barto Salahna dad badan waxay dhahayaan ninkan sidoo u siixay heshiiska cusba oo lacag badan la siiyay sidoo hore uu ciyaarayo formkiisa hoos ayuu dhacay marka ma wuxuu rabay si fiican u ciyaarayo in heshiis cusub la siiyo aniga lama aha laakiin de waa arin la yaab leh sidii loo siixay heshiiska cusub loo siiyay asaga dhama xaalkiisa uu isbedelay ninkan waa gartay waa imaan doonaa dabcan ciyaarta ilaa hadda waxay socotaa 30 daqiiqo marka waynu arki doonaa wixii ku soo kordha waa yahay Man United oo imaan doonaa bal Chelsea oo imaan doonaa Europe horta maxaa ka socda ciyaaran caadi ahayn ayaa maanta soo dhamaatay oo Napoli iyo Inter Milan ayaa Serie A ku ciyaarayeen kooxda Napoli oo championka Serie A ah ayaa waxay soo dhaweeyeen kooxda Inter Milan championka sanadkii hore
oo Champions League kaalintii finaalka gaareen inkastoo PSG si ceeb uga badisay laakiin ciyaartan waxay ahayd ciyaar aan caadi ahayn qaabkii labada kooxood u kala ciyaareen sida ciyaarta loo kala maamulayay laakiin waxa la dhihi karaa Antonio Conte maanta si fiican ayuu uga faa'iideystay Napoli Inter Milan khadaadka ee suubiyeen ciyaartina waxay kusoo dhamaatay 3-1 De Bruyne ayaa penalty dhaliyay Scott McTominay goolka labaad dhaliyay goolkii saddexaadna waxaa dhaliyay Anguissa marka ciyaaryahanada dhexda ayaa goolasha ka faa'iideysanayaan Napoli waxayna ka dhigan tahay ciyaartan hadda Napoli inay badiyaan 4 ciyaar isku xigta gurigooda ka badiyaan waxayna soo qaadeen ciyaarta haddii la fiiriyo 7 shoot ayay soo rideen Napoli 3 gool ayay dhaliyeen 3 shoot ay soo rideen on target ayay ahaayeen gurigooda looguma badin Napoli waxa ugu dambeysay ciyaartii December 2024 Lazio markay ugu badinayso garoonkaas ayaa ugu dambeysay waxayna ka dhigan tahay 15 ciyaar isku xigta inaan gurigooda laga badin 12 ciyaar ayay badiyeen marka waxa waaye 4 ciyaar isku xigtana waxay noqdeen kooxda ugu horeysay Championska Serie A oo ku badiso 4 ciyaar isku xigta gurigooda lagu ciyaarayo seasonka markuu bilow yahay waxa ugu dambeysay sanadkii 1967 marka Napoli waxa moodaa maanta inay ka faa'iideysteen khaladaadkii Inter Milan ay sameynayeen waxayna ka dhigan tahay hadda inkastoo ku meel gaar ay tahay in kaalinta koowaad ay kusoo noqdeen Napoli iyo Scott McTominay iyo Antonio Conte dhinaca Jarmalkana Bayern Munich 3-0 ayay wax uga badiyeen Mönchengladbach Dortmundna 1-0 ayay wax uga badiyeen kooxda Cologne marka Brighton aan arki doonaa ciyaarta AC Milan si u kala dhacdo ayaga laftigooda waxay filanayaan inay badiyaan maya AC Milan xalay igaraal noqdo AC Milan xalay ayaa Breja la galiyay waliba waxay Breja la galeen kooxda Pisa 2-1 nayo Pisa ayaa 2-2 la galeen ciyaartaasi marka hadda Napoli waxay haystaan fursad fiican oo kaalinta koowaad ay ku sii jiri karaan Roma haddii ay badiyaan ciyaartooda Brighton ayagana kaalinta koowaad way ku soo noqon karaan maxaa yeelay goal difference-kooda ayaa aad iyo aad u fiican Inter Milan waa laga badiyay shalay marka waxa moodaa xoogaa hadirtan inuu soo kala baxayo kooxaha si fiican u kala dagaalamayaan kooxda dhabta ka tahay oo Napoli iyo AC Milan iyo aad iyo aad Bruno ciyaar adag baa jirta Barca iyo Real guriga Real baa lagu ciyaari doonaa ciyaaran caadi ahayn waa garoonka Real Madrid lagu ciyaari doona sida sheegtay waaye Highlandka ayaa meesha ugu muhiimsan maxaa yeelay Real Madrid sidii sanadka hore maaha hadda waxay ku ciyaaraan kalsooni weyn Mbappe sidii sanadka hore maaha aad ayuu sanadkan filmkiisu u fiican yahay haddii uu helo Highlandki fursadihii sanadka hore ku helay Santiago Bernabeu inkastoo Barcelona ciyaartaas ay ka badaysay Real Madrid laakiin waxaan xasuusnaa in Mbappe laga diiday 3 goal offside marka haddii maanta aanay Brighton haddii fursad fiican ay ku helaan oo Highlandkaas ay ka faa'iideystaan Real Madrid waxaa laga yaabaa Mbappe inuu 2 ilaa 3 gool ka dhaliyo Real Madrid Barcelona waxay u baahan ayaga waxa weeye in ay ku sii socdaan qaab ciyaaroodkooda sida uu ahaa sidii sanadka hore oo Rafinha hadda Rashford Busquets ka ciyaarayo Lamine Yamal fursado soo dhisi jiray inay isdejiyaan fursadooda ka faa'iideystaan maxaa yeelay waxa hubaan ah oo la iska hubaa in fursad ka helaysa Barcelona laakiin waxay ku xirantaa kooxda u bixisa hadda ka faa'iideysan kartid iyo hadda ka faa'iideysan karin ayaga Barcelona sanadka hore waxay ku fiicnaan waxay ahayd anaga ka gool badnaanayno ama hal gool aan ka badnaano ama show gool aan ka badnaano waa ka goolal badnaanayna waaye sanadka hore waxay liiga ku qaadeen Champions League semifinalka ku gaareen laakiin sanadkan waxa ku aragnay ciyaartii Sevilla kale 4-1 marka looga badinayay ciyaartii PSG 2-1 marka looga badinayay Highlandka ay dhibaato weyn u keeneen marka Jude Bellingham iyo Arda Güler hadii lagu bilaabo oo ay baasas fiican ay la raadiyaan Mbappe oo si toos ah u la helaan Highlandkaas uu ka faa'iideysan karaa Mbappe hadeertana kalsoonidiisa sanadka way dhaantaa marka waxaa laga yaabaa haddii fursadihii uu helay sanadka hore hadduu Brighton uu helo inuu ka faa'iideysan karo ciyaaran caadi ahayn ayaan sugaynaa oo goolal badan iska dhaliyo Brighton aad iyo aad ciyaarta socota Liverpool iyo Brentford daqiiqadii 35 bay ku sii dhowdahay ciyaartu waxaana moodaa weerar in lagu hayo Liverpool hadda weerar baa socda laad xora ayay iska qasaariyeen kooxda la yiraahdo Brentford ciyaartuna hal iyo eber bay maraysaa waxaana moodaa Liverpool in aad iyo aad loo kuusayo Brentford runtii si cajiib ay ciyaari doontaa meeshan waxba ka socda may waa iska celisay Liverpool waa yahay waa tahay ma la oran karaa ciyaartan Britole labadan kooxood tii badisa ayaa iska leh mise waa xilli hore la liiga weli waxa waaye early waa seasonka weli seasonka waa cusub yahay laakiin kalsooni weyn ayay ka helayeen weliba Real Madrid iyo Xabi Alonso
oo ah tababaraha hadeertan Real Madrid ciyaartiisa ugu horeysay Clasico ayuu tababari doonaa Real Madrid marka asaga laftigiisa kalsooni weyn ayuu ka helay haddii uu ka badiyo haddii ay badiyaana waxay ka dhigan tahay sida meeshan ugu jeedin inay ka sarreyn doonaan kooxda Barcelona 5 dhibcood iyadoo la ciyaaray 10 ciyaar marka waxa waaye fursad fiican ayay haystaa Real Madrid laakiin Barcelona oo garoonka Real Madrid ku ciyaarayso haddii ay ku soo badayso taasna waxay uga dhigan tahay ceeb weyn Real Madrid in laba sano isku xigto looga badiyo garoonkooda El Clasico marka waa ciyaar xiiso weyn leh waan arki doonaa si ay ku soo dhamaato ciyaartaasi foor gacme marka la heshay kooxda Brentford waxbaa soo socda meeshaan haye gudaha ayaa la soo geliyay maxaa dhici doona shukuma galo loo keenay hadda kubadii waa loo diyaarinaya waa Stoke City oo kale ha marka slot inuu dhaho kubadahan dhaadheer ayaan dhibaato nagu qalad weyn ayay ahayd ciyaartii Manchester United inuu sidaas u hadlo markii ay soo dhamaatay waxay ahayd qalad weyn maxay la hadda tababaro kasto wadankan jooga wadhigeysanayaan wuxuu dhahayo ninkan marka waxa waa Liverpool markasta oo bixaysid kubad dheer la ciyaar bas ayaga markaas waa arki doonaa isaga difaacaan laakiin difaac gadaal hadii laga fiiriyo difaacina dheer way haystaan Van Dijk joog Konata joog golahayaha wuu dheer yahay marka in laga saas waxa soo kulin ku hadla khalad ay ahayd uu ku degdegay slot tababarayaasha Hollandeeska waxa lagu yaqaan ayaga runta inay sheegaan ben iyo mind games waxaas lagu yaqaan laakiin marmarka qaarkood waxa u baahan tahay inaad qarisatid meelahaad ku liidatid oo kooxaha kale ay kaaga fiican yihiin arrinta cajiibka waxa weeyaan waxa moodaaba Liverpool inay gool leedahayba yani Brentford in gool lagu leeyahay moodaa si u weeraraysa Liverpool taas laftigeeda waa inay iska ilaaliyaan Brentford maxaa yeelay haddii ay daalaan qaybta labaad ciyaarta Liverpool waxaa laga yaabaa inay ciyaarta wax weyn ka bedelaan oo ciyaaryahano fiican ay haystaan oo hal fursad bas ay u baahan yihiin ciyaartii Frankfurt kale waa aragnay Frankfurt gool ayaga la hormaray laakiin Ekitike iyo Virtus iyo ciyaaryahan caadi ahayn ayaa u jooga Liverpool oo fursad fiican soo dhisi karaan marka Brentford waa inay tartiib u ciyaaraan ASDGan energy-gooda waa inay keensadaan waayahay Real Man United waxay bilaabeen horyaalka ma qaadi doonaa waxa arkaynaa xirsigaasiyaad Man United ka warramayo horyaalka ma qaadaysa waan ka hadli doonaa magaalada hore imaan doonaa waayahay Chelsea aan ka hadalno Chelsea waa koox aan ognahay sida aya kasbay gurigeed ugu tagtay oo Champions League balay ku soo dhigtay Liverpool ba ka badisay laakiin Sunderland horyaalka soo gashay gool intay la hormartay laba in loogu bedelay barta maxaa dhacay ciyaartaasi inooga waran hadda fursad kale iska cuneen Brentford oo 2-0 ciyaarta ugu dhigi kareen waa wax la yaab leh sida u weerarayaan sida sheegayso waxa moodaa in ayaga gool lagu leeyahay waa yahay ciyaartii Chelsea maanta horta waxaan dhihi lahaa waxa waaye Chelsea waxa ka badiyay barahooda waaye ninkan waxa moodaa Pep Guardiola kale inuu yahay sidoo wax u bedelay maanta wuxuu rabaa inuu ciyaaryahanadiisu intuu isleeyahay tababaraha kale ka aqli badi ayaa ciyaaryahanadiisu isku dhex wareereen waxaan ka warqabnaa Liverpool inay ka badiyeen waxaan ka warqabnaa Nottingham Forest inay 3-1 uga badiyeen maanta waxay haysteen fursadii kaalinta labaad ku gali kareen Sunderland oo hadda Premier League soo galeen ayaa maanta kaalinta labaad soo galeen ciyaarta markay ay ka badiyeen Chelsea haddii ay badin lahaayeen kaalinta labaad gali lahaayeen balde meesha maanta waxay joogaan kaalin sidaa waxaas oo waxay ku dhacday waxa waaye mareeska iyo bedelada maanta waxaas ku dhex qasqasayo ciyaaryahanada oo kala dhaqdhaqaajinayo ciyaartii Ajax 5 gool dhalisay yuu ku bilaabay marka afka hore wuxuu ku bilaabay 4 ciyaaryahano cusub gool baa laga qabtay Brentford goolahayaha si xun u badbaadiyay waana corner haye marka waxa waaye wax la yaab leh ninkan bedeladu sameeyay goowi afkor ka ciyaaraya maaha inta kale oo dhan ciyaarta meena bilaabin Joao Pedro ma lagu bilaabin Pedro Neto ma lagu bilaabin Garnacho ma lagu bilaabin marka maxaa ciyaaryahanada waqti helaan meesha ma sida Conference League oo kale oo hal isbuuc ay ku ciyaaraysa ciyaaryahano Garnacho lagu bilaabay Garnacho ciyaarta uu ku bilaabay laakiin ciyaartii Champions League benji ku jiray Joao Pedro benji ku jiray Pedro marka goormay heleen waqti isku bartaan ciyaaryahanada maanta ciyaarta marka daawanayo Chelsea ayagana isku dhaxyaacsanayeen goolka ayaa la hormareen oo Garnacho gool caadi ah ayuu dhaliyay goolkiisa ugu horeeyay ayuu ahaa kooxda u dhaliyay si fiican uga faa'iideystay meeshan oo jeedna goolkii waad Chelsea dhalinay gool caadi ah oo aad u qurxoon ayuu ahaa
marka daqiiqadii shanaad ayay ahayd goolkaas markay dhalinayeen waxaa laga filinayay koox gurigooda ku ciyaarayaan koox u baxayaan koox hadda Premier League ku cusub Championship ka timaaday koox haysata fursad ay ku galaan kaalinta labaad inay gool labaad sii raadsadaan gool saddexaad sii raadsadaan oo ciyaarta saddex dhibcood easy ay ku badiyaan may saas ma wadicinba waxa dhacay waxay ahayd Sunderland oo intay xoogaa baasbaas intay soo dhiseen fursado fiican soo kala dhiseen laakiin Chelsea ayaa isku dhex wareeranba waxaaba isdhehaysaa ciyaaryahanada weligood misla ciyaarinba wax la yaab leh waaye goolka waa Sunderland fiirino waa kubad gacan dheer oo lagu soo tuuro mar kale waa sida Brentford kale goolka waa sidan ayuu ka yimaaday difaaciyada Chelsea isku dhex yaacsiin ayagoo dhan goolkii labaad oo Chelsea laga dhalinayay ayaa wuxuu yahay horta wax la yaab leh meeshan fiirino goolkii labaad markii kubad waxay ahayd counter attack Chelsea waxay isdhahay sida ciyaarta Liverpool oo kale gool labaad ciyaartan ku badisaan laakiin kubad dheera loo soo crossay waxaa loo dhiibay Broby afkor ka ciyaarayo oo Ajax lagu soo iibsaday oo jeedaan meeshan laba difaac ayaa xiraysa ninkan marka waxaan rabaa inaan ka hadlo labadan difaac oo hal ciyaaryahan bas xirayaan waxay tusi doonaa meesha Chelsea ku qaldanaayeen waxa horta ku dhagan ninkan haddaan meesha ku soo dhaweeyna sawirka waxa ku dhagan Tosina ku dhagan marka waxaas dhehaysaa hal difaac ku filanba hadda sawirka ka fogeeno marka waxa laga rabaa iyo difaacan ag taagan Chalaba inuu geesaas ka fiiriyo oo is dhaho ninkan waxa ku filan Tosina ayaa ku filan difaacan Nigerianka ani ka fogaado Chalaba la yiraahdaye waxaan rabaa inaan fiiriyo meesha yaa kale u soo dhow kubad iyo kale u baasi karaa aan fiirino meesha marka ninka uu soo jeesaday Chalaba cid uu xiraa ma jirto Reece James wuxuu ku dhaamaaba ciyaaryahan difaac Sunderland weeryahanka ayuu difaacayaaba laakiin ciyaaryahanka Moroccanka goolka dhalinaya number 7 Talib la yiraahdo marka kubadda loo soo baasa yaa xiraayaba cid xiraysa ma jirto Chalaba muxuu halkaas ka qabanaya Caicedo muxuu kubadda u fiirsanaya inuu fiirsado Soomaa ninkan iska furan oo free ah inuu fiiriso may ma fiirinayaanba way ka sii jeesadeenba maxaa dhaca marka oo jeedaan meeshan gool wuxuu ahaa iska furan cidna aan xiraynin meeshaas ayuu sidaas uga dhaliyay Sanchezna waxay ahayd kubaddaas inuu qabto uu qabo waaye marka difaacyada Chelsea laba difaac inay ku mashquulaan hal striker oo u ciyaarayo Sunderland ayaa waxay tahay wax aan macquul ahayn wax aqli galay maaha ciyaartan aniga waxaan isleeyahay Chelsea meesha looga badiyay qad ka dhex ay ahayd Sunderland waxaan aragnay waxay ku ciyaaraysay 5-4 way baqaysay laakiin maxaa dhacay marka 5-4 halkaas wuxuu ku ciyaarayay labada ciyaartoy oo garbaha saaran waxaan u jeedaa baalayaasha daba saaran labada iyo afarka ayuu wuxuu sameynayay wuxuu ku soo korinayay difaacyada meesha marka shaakay afar ay yihiin 6 nin bay ahaayeen dhaqadka dhexe meeshaas way marka meesha waan ka hadli doonaa Man United meelaha ku badasay waxa kamid ah qadka dhexe maanta marka dhibaatada Chelsea marka waxay ahayd qadka dhexe laga qabsaday ka ziyada qaradaad buu sameynayay maanta dhan iska ciyaarayay Fernandes oo arkeen laftigiisa wuxuu sameynayay laakiin labada nin ugu darnayd labada nin bay ahaayeen ka ziyada iyo Fernandes Chelsea qadka dhexe ayaa laga qabsaday ciyaarta João Pedro waxa laga rabay gadaal uu soo noqdo oo difaacyada ciyaaryahanada dhexda ka ciyaara inuu caawiyo wuxuu ku mashquulsan weerarka gool uu raadsanaya bas gool ka fikiraya ninkan waxa laga rabaa gadaal uu soo noqdo number 10 marka ka ciyaaraysid waxa qayb ka tahay ciyaaryahanada dhexda ka ciyaarayaan ninkan wuxuu ka fikirayaa see gool ku heli karaa marka Chelsea wuxuu u baahan inay isku noqdaan oo si wax laga bedelo waxa kale yaab loo hayd Garnacho goolka asagoo dhaliyay oo ah ciyaaryahanka ugu fiicnaa ciyaarta ayuu bixiyay meesha laga rabay João Pedro inuu saaro ama Gowi inuu mar hore saaro daqiiqada 58 markay mareysay ayuu bixiyay wuxuu keenay Estevao keentay ma xume marka Pedro Neto booskiisu